Assalaamu calaykum. Gabadha uurka leh ee ku jirta job centerka waxaa loo ogol yahay in ay qaadato lacag taas oo la yiraahdo maya bedarf oo ah hooyada loogu talagalay dharkeeda iyo nafaqo waxay u baahan tahay marka ay ku jirto 13 toddobaad ilaa ay ka dhalayso iyo lacagta dalban kartaa. Videogan ayaan ku soo bandhigaynaa sidii aad u dalban lahayd iyo wixii aad u qori lahayd. Waa tan waraaqadii aan soo diyaarinay saad u arkaysiinba way diyaarsan tahay. Waxaad ku bilaabi magacaaga. Ani tusaalaan iska soo qaatay. Waxaad kalood ku qori adreeska aad degan tahay, ishtiraasaha iyo lambarka aqalka. Waxaad kalood ku qori postlight saalka magaalada aad degan tahay iyo magaceeda. Waxaa kalood ku qori beegenuma oo ah lambar lagu garanayo oo kuugu qoran markastaba waraaqada job centerku kuu soo diraayo. Waxaan u soo gudbaynaa adreeskii kale ee job centerka magaalada aad degan tahay, adreeskiisa iyo sidoo kale postlight saalkiisa iyo magaalada. Inta markaan ka imano waxaan u guda galaynaa cashirkeeni. Waraaqada tiitelkeyga waxaad uga dhigi Antrag auf mehr Bedarf bei einer Schwangerschaft oo ah dalab ah marka ay gabadhu uurka leedahay lacag siyaada ah oo aanan ahayn caydha ah ayaa la siiyaa. saas daraadeed waa inaad u qorataa job centerka waraaqad si ay kuugu soo diraan adoo gurigaaga iska jooga ayaabaad ugu ridi briefka. Intaa markaan ka imano tiitelka waxaad ku bilaabi qoraalkaaga Sehr geehrte Damen und Herren, marwooyin iyo mudanayaal, aufgrund meiner Schwangerschaft uurkayga dartii hiermit beantrage ich einen Mehrbedarf. Waxa aan idinka dalbanayaa lacagta dheeraadka ah ee gabdhuhu markay uurka leeyihiin la siiyo. Zusätzlich beantrage ich Unterstützung für den Kauf von Umstandskleidung. Intaas waxa iisii raacsan dharka aan xidhan lahaa waayo dharkayga hadda ma xidhan karo maadaama uu miisaankaygii beeray. Dhar waxaa jiro loogu talagalay Schwangerschaftigu inuu xidho gabdhaha uurka leh. saa daraadeed waxaad odhan waxa aan idinka mar kale aan idinka dalbanayaa inaad iisoo raacisaan kaas lacagtiisa. Anbei finden Sie eine Kopie des Mutterbasses. Waxa kale oon idiin soo raacinayaa ama aad ka heli kartaan waraaqadan oo la socota koobiga mutterbaskayga. Mutterbasku waa kani buugan yare la siiyo ee lagu siinayo markaad uurka leedahay ee macluumaadkaaga oo dhan ay ku qoran tahay iyo ilmaha miisaankiisa iyo waqtiga aad dhalaysid iyo inta fooqeed tahay. Awan artiskaagana ku siinayo. Aus dem das Datum der Feststellung der Schwangerschaft sowie der Schwangerschaftswoche hervorgehen. Waxaana buugaas ku qoran taariikhda aad uurka qaaday ilaa iyo taariikhda aad ka dhalaysid ayaabaa kuugu qoran iyo macluumaad kaloo dheeraada. saas daraadeed waa inaad koobi u raacisaa mutterbaskaaga. Markaas waxaad u sheegtay saadkan u dambeeya in aad koobiga mutterbaskaaga aad raacisay iyo waxaad ugu dambaysiin mit freundlichen Grüßen salaan saaxiibtinimo iyo adigoo saxeexaya oo magacaaga ku saxeexaya. Waxay kuu sahlaysaa waraaqadani in aad adoo gurigaaga jooga aad si dhib yar ugu qoratid oo bilaa mashaakil ah inta aad tegi lahayd job centerka aad ku kalihi lahayd
waqti kaa lumi lahaa oo aad maad aragtaan intaad waraaqad goosato aad maanta dhan sugi lahayd ayadoo saas kuugu diyaarsan oo maad aragtaan kuu dhammaystiran yahay waxaagii oo dhanba ayaad soconi briefkoogaad ugu ridi maalmo ka bacdina way kuu soo jawaabayaan sida briefka loo qorayo ama waraaqadan loo qorayana waxa aan idiin soo hoos dhigay insha Allah videoga hoostiisa ood ku qoran kartaan haddii Ilaahay yiraahdo haddaad u bogtay videoga halkan taabo si aad noogu xidhnaatidna halkan taabo